مدن علي المروين سلام كدب وحا شرف وين إيه إنان هرتينا كقرو إنان أقبل مسؤولية دوين إلا يقو آميني إنان هقاميو تلسك عيدن كحوق دالك صوماليات أو قاشانك إلاليا كرامدا شرفتا مدح بنانيدا يمدنمد أمد الصوماليات ملكستو أي جوغان سيدو كالوحا فرحد إيه إنان حلك كالوري قمانتا تليودوا يوسف راجي oo aan la soo shaqeeyay labadii jeer uu hogaaminay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed anoo xilal kala duwan haya tani waxay saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee dhalinyarada ah u tahay ama uga dhigan tahay fursad dahabi ah oo lagu tijaabinayo tayada iyo hanaanka maamul ee jiilka cusub ee saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaas oo aan ku kalsoonahay wax qabadkooda shaqo haddaba mudanayaal marwooyin waxa hubaal ah in mas'uuliyadda ay tahay mid culus kuna soo beegantay waqti adag una baahan dhamaanteen inaan iska kaashano difaaca qarannimada iyo madax banaanida dhuleed ee dalka kuna bixino naf iyo maal sidaan dalkan looga difaaci lahaa cid waliba oo qatar gelin karta amnigiisa horumarkiisa iyo siyaadadiisa saacadan aan joogno dhammaan gobolada dalka ciidamo Soomaaliyeed ayaa kula dagaalamaya cadawga argagixisada kuwaasoo fagaaraha dagaalka ka muujiyay geesinimo hal adayg waxaan rabaa halkan inaan uga diro salaan iyo duco wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee doortay naftooda inay u huraan si ay u difaacaan sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed mudan ra'iisul wasaare waxaan ka codsanayaa in ay u ogolaatid sidoo kale inaan halkan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ugu gudbiyo fariin ah inay yihiin geesiyaal dhab ah hal adag oo aan cashir aanan la ilaawi karin mar waliba u dhiga cadawga ummadda Soomaaliyeed ee dalkan diidan horumarkiisa waxaan idin leeyahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo waxa tihiin gaashaanka ummadda Soomaaliyeed ee hortaagan cadawga wax magaratada ah ee aanan lahayn wax diin iyo dhaqan toona kuna dhisan afkaar qaldan waxaan hubaa inaad baabain doontaan dalkana aad idinka u hari doontaan mar dhowna aan insha Allah huwan doontaan taajka iyo sharafka cisdiga guusha insha Allah kadib la wareegida mas'uuliyadan waxaan sii xoojin doonaa dadaaladii horumarineed waxaana markasta awood isugu geyn doonaa sidii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu noqon lahaa ciidan magac ahaan iyo awood ahaan ka dhex muuqda caalamka anigoo kaashan doono walaalahay saaxiibaday saraakiisha iyo askarta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inta aan xafiiskan aan maanta la wareegayo joogo waxaan ka shaqeyn doonaa sar u qaadista tayada dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee isugu jira maamul iyo howlgal intaba anigoo ku soo koobi doono qodobadan hoos ku xusan waxaan xoojin doonaa nidaamka isla xisaabtan ee taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kor u qaadista tayada iyo awoodda sirdoon ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan xoogga saari doonaa dhismaha iyo tayada talisyada noocyada ciidamada iyo taliska ciidanka gaarka ah si kor loogu qaado awoodda howlgal ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan la dagaali doonaa isticmaalka maandooriyaha iyo wax waliba oo lid ku ahaanshaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya Beko waxa ay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubbaland Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degme ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airportka Aadan Cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah